qaanka jannada la yiraahdo ayaa ku jirtay waxaan ka codsanayaa inaad igu celiso sheekada murqaanka jannada iyo sida ku timid sheekadu iyadu ma sugan ma heynta murqaanka jannada ku saabsan ee waxay ahayd buugay ku jirtay qasoonkii buuga oo qoray ka mid ah hay maasudan oo keedo qaadka dhinac ka yartaabana si nolosha guud sax qasadu horena uga hadal wax ku saabsanayd buugay ku jirtay qayb cutub la yiraahdo shamreerka dubaabka waxyaalo kamid waxyaalaha dadka muqayiliinta waa sax asiiba buuggan aad ka qortay chatka runtii waan daawanayay maalintii tuducyadii aad ka soo qaadatay ku noqon mayna iyada xaggii chatka oo kaas waa masiibo ummadeena uu la degay abuukar cawaala ka daba dhigtay oo kaga soo haraya meel bal sheekadan qosolka lahayd murqaanka iyo dubaabka taas bal hadda inagoo sii nacsiinayna dadka qaadka cuna taa inoogu celi aynu soo koobaynaa waxaan ka qoray nin xilli hore dadkii qaadka aad u cun jiray kamid ahaayo waliba wuxuu kamid ahaa qoriyinkii jabadii isna kamid ahaa marka qaadkii iska yara daayay in muddo dabadeedna wuxuu bilaabay iska cibaadaysto iska tukado kolkaasuu iska yara qaboobay oo dee iska wax noqday cibaadadii dabeedna habeenkii wuxuu ku reeday ninkii soo geeriyooday hal in yar kadibna jannadii galayoo la janneeyey jannada dhexdiisa uu isaga jira buu xasuustay naska sheegaya in qofku hadduu ehel janno yahay wixii uu tamaniyayba in jannada lagu dhex siiyo qaadkii markaa niyeeyo qaadkiiba jannada loogu keenay qaad dheer oo kiifka aan ahayn qaadkii markii loo keenay buu in yar kadib iska qayiray siduu sheegayay oo riyada ku sheegay oo deedna waxaa hadan xasuustay inuu ka dhimayay sigaarkii sigaarkii wada socdaan beladii sigaarkii markii loo keenay ayuu dab lama socdo oo ku shito deedna malaa'igtii jannada joogtay calayhi salaam ayuu ku yidhi wax raba dab la imsi sigaar xubna jannada dhexdeeda dab lagama ogola waa ka mamnuuc ila waa janne haadiya inta waa fakaray wax la noqotay intuu baxaynu cadaabta ka soo shitay cadaabta dadku yaalay tabaasna murqaanku wuxuu la galay inuu cadaabta sigaarka ka soo shito albaabkii waan ka baxay riyada iga saartay jannada oo waxaan tagay albaabkii cadaabta albaabkii la ilaalinay allahumma najina dadna albaabkii markii laga furay waxaad ka tirado jannada oo maxaa ka soo saaray sigaarka ma doonaysto waa iska joogay jannada ma ay xabadan waan ka maari waayo inta albaabkii furay waa halka uu soo iska soo shido na soo dhaaf deedna wuxuu insaan wuxuu galay axwaashii cadaabta ka socotay baa xamili waayo xataa waxa ka qalay jabadiisa kamid ku jira صاحبتي سقار كم هذا علاقتك لا حلي ومن حمل واسك صباح صلقت معي الباب تبحه أي شو قال كي هذا شفتي ولا بدي شيء بلا يحسب أنا قاني أنا معاه هذي مركزون حتى لو كان هو كان بضبط سيجار وسوش ده سيجار مش إن شاء الله محيا أنا وقفت على هذه مركز شيء كذا مركز شاف عذاب تزول لك ليه مركز كي تلا محاك الدنبيه مقعده مركز كي تلا محاك الدنبيه صدح نين أيام مساجد ولا دسي صدح ذا نوح على كلام هذا داود يا موسى يا إبراهيم وذين داود وذي جاهلا مساجد بالله دسي مساجد كي بالله قرامة صدح ذو داود دسي مركي مساجد كي لا دسي أي صلاة تجمع مالتي ورئيسي أي اللي قلت كذي وذين سبح اسمه رومو مقلبه صبح اسمه صحف إبراهيم وموسى بكترته وضيق مركا إمامك مركو صلاة حدي أيا صبح اسم الله آخري صحف إبراهيم وموسى أيوم مغلي إبراهيم وموسى وساحب بدي وحو يصير إمامك وحو مهد علي اللي بدو دو كلية عضوك العقب بدنانا لو بص هذا القادم بيته دبدتو وضيق وسكا سمرو مالتي دنبو صلاة دي جمعية دنبو ما صبح اسمه بدليتي صحف إبراهيم وموسى وأهل كيدي أضيق دبلتو يسقو آد وكعسن أي بود سوقاتي صلاة جمعة صدحات ويسوق دقة إمامك أكتي سينو وكتو كذي صحف إبراهيم وموسى مركم مريو أي مدعى قرحي ما سكول وداود walaalay waad qaan gaartay waxaan rabaa inaan ninka ugu daro sheego ninka kugu dari lahaa walaalo haddaan nin ugu daraydo Mareykanka ha joogo haddii la waayana Ingiriiska ha joogo haddii la waayana Jarmalka ha joogo haddii la waayana Sweden ha joogo haddii la waayana Talyaaniga ha joogo seedi anu waan sii baxayaaye markay Soomaaliya soo gaarto isoo wac